shirkayga jaraa'id maanta waxaan u qabanayaa inaan kaga hadlo xaaladaha ka jira deegaanada anigoo ah gudoomiyaha degmada Gumbax. intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo deegaanada aan xukumo dhibaatooyinka ka jira xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta iyo xaaladda dadka ku nool qaabkay hadda tahay. runtii waxaan wada ognahay Puntland oo dhan inay ka jirto abaar wada saameysay guud ahaan deegaanada Puntland, gaar ahaan dhulka laamiga ka fog oo dawladda iyo dadweynuhu ay u yaqaaniin gaariwaaga. abaartaas oo saameysay inta badan dadkii xoolo dhaqatada ahaa, hadeerna ay dhammaan ku soo wada xaroodeen dhulkii magaalooyinka ahaa, ceelashii iyo meelihii biyaha ka cabi jireen ay ku yimaadeen biyo yari aad u baaxad leh. intaa kadib waxaan rabaa inaan dawladda iyo dhammaan hay'adaha ay ka caawiyaan arrimaha abaaraha. inta markaan ka imaado xaaladda abaaraha, anigu waxaan ahay gudoomiye. waxaan rabaa inaan ka hadlo cabasho aan u qabno dawladda aan ka tirsannahay. cabashadaas oo ah inaysan dawladdu aysan noo soo jeedin guud ahaan degmooyinka laamiga ka tirsan aysan u soo jeedin. dawladduna ay isu koobtay inta degmo oo laamiga saaran. sababtuna anagu ilaa hadda waa garan la'nahay. waxaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wuu nooga jawaabi waayey xiriirkayaga iyo la hadalnay. intaa kadib waxaan garowsannay inaan shir jaraa'id aan qabto, maadaama anigu ahay afhayeenka degmooyinka laamiga ka baxsan. degmooyinkaas oo kala tirsan gobollada Gardafuul, Bari, Sanaag, Haylaan, Karkaar. intaasna waxaan ku midaysannahay dhibaatooyinka ka jira deegaanada oo aan wada nahay. dhibaatooyinka waxaa ka mid ah gudoomiyaha ugu waqti yar ayaa wuxuu joogaa muddo sanada. ma haysano wax gaadiid ah oo aan ugu shaqeyno deegaanada iyo dadka aan xukunno. wax xuquuqana dawladda kumaana lihin. sababtan ilaa hadeer waa fahmi la'nahay. anagu Puntland miyaana ka tirsaneen, degmooyinka kale miyaa waxa weeye aan ka duwannahay. ilaa hadeer wax nooga soo jawaab arrintaa waa garan la'nahay. dawladdii iyo shacabkii aan xukunnayna waxa weeye waa ku jahwareersannahay qaabkii aan ugu shaqayn lahayn. dawladduna way nooga soo jawaabi laadahay sababaha jira oo rasmiga ah oo aan uga duwannahay degmooyinka kaleeto. bal waxaa moodaaba dawladdu inay inta laamiga kaliya ka shaqayso. sababtoo ah waxaan maqalnaa wasiir hebel baa wuxuu tagay meel hebel baa wax laga dhagax jaray, xarig laga jaray, meel baa la dhagax dhigay. annagana wax mashaariica ma hayno, wax xuquuqana dawladda ilaa hadeer kuma lihin, kamana hayno. sababtoo ah waxyaalaha keentay inaan ka hadalno miidiyaha oo miidiyaha inaan soo fariisanno keentay ayay waxay ka tahay kow. intaa kadib waxaan rabaa shirkayga jaraa'id inaan ku iftiimiyo xaaladaha ka jira Puntland maanta iyo qaabkay u shaqayso dawladda Puntland. Puntland xaaladaha maanta ka jira waxa weeye hadba inta isla jaan qaadi ka dhah ayaa dawladdu wax u qabataa. ayadoo aan mararka qaarkood isdhahnaba maqaab qabiil baa loo shaqaynayaa. sababtoo ah 53 degmo ayaa Puntland ka jira. degmooyinka shaqeeya oo dawladdu ay ka shaqayso, dawladdu caawiso oo gaadiidka ay siisana ilaa 10 degmo ma dhama. sababtoo ah degmooyinka kale meeshay aadeen, dawladdu meeshay uga tagtay. ilaa hadda jawaabteeda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha dawladda Puntland. sababtoo ah cabatiga aan cabanayno oo miidiyaha aan nimi waxaa dareemi kadhaa dhibaatooyinka ka jira deegaanada anagu xukunno iyo culaysyadana haysta oo aan ku shaqayn karin. waayo qof dhan oo mas'uula oo la rabo inuu shaqo dawladda u qabto oo haddana dawladdu uu u shaqaynayay wax xuquuq ku lahayn oo wax sarfaysa ka heleen. amniga deegaanada waxa weeye waa laga warahayaa, dhibaatooyinka meelaha ka jiraan kulli waan ka warhaynaa. haddana waxaan diidannahay inaan dadkaygii ka tagno oo shaqada aan u haynay faraha kaga qaadno. marka waxaan garowsannay inaan shirkan jaraa'id aan qabto anigoo ah afhayeenkii degmooyinka ilaa 12 degmo oo gobollada Bari iyo Sanaag iyo Haylaan iyo Gardafuul iyo Karkaar ka kooban. ayaguna way hadli doonaan, miidiyaha bay soo fariisan doonaan. kadibna waxaan rabnaa in xal la helo, dawladdu inay xal noo hesho. haddaysan dawladdeenu marka xal noo hayn oo aysan noo soo jeedin, dee waxa weeye dawlado kaleeto iyo ummado kale aan la shaqaysano ayaan doonan doonaa. waxa weeye Puntlandna
ayadoo ha isku filnaato annaguna waxaan noqon doonaa dowlad kale oo Puntland ka dhex samaysan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya shirkayga jaraa'id. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.